dagaalkii bariga dhexe ee ka dhexeeya Maraykanka iyo Iiraan ayaa waxa uu bilaabay in uu sabab u noqdo baraarug aad u ballaadhan oo shacabka bariga dhexe ee Carbeed ay indhaha ku kala qaadaan, iyaga oo bartanka u fadhiya dagaal meel alla meel uu ka bilowday, meel uu marayo iyo meel uu ku dhammaan doono midna aanay tala ku lahayn, iyaga oo arkay iyadoo afarta beenijahaba gantaalo la iskaga ridayo, diyaaradaha darooniska iyo kuwa dagaalkuna ay hawadii maansheeyeen, iyada oo maraakiibta dagaalka iyo gujisyada quusaya badda hoosteeda ay carradii qabsadeen oo badihii iyo marinadoodiina la xidhay. Dagaalkaas oo wax tala aanay ku lahayn, awoodna aanay ku joojin karin. Marka nabad laga hadlayana iyaga miiska aan loogu yeedhin oo dadka wada hadlayaaba ay yihiin dad aan carab ahayn, iyada oo dagaalladu ka dhacayaan deegaankooda ayaa haddana taladii ayan gacanta ku hayn colaad iyo nabad toona. Arrintaasi waxay abuurtay baraarug aad u ballaadhan oo ay indhaha ku kala qaadaan in saldhigyadii Maraykanka ee geyigooda ku yaallay ay ahaayeen kuwo aan iyaga ilaalinayn. Waxaa kaloo la ogaaday saldhigyadaasi inay sababeen abaaro aad u waaweyn oo qalabka ku xidhnaa uu ahaa qalab shucaac iyo tashwiish ku fura daruuraha iyo cimilada roobka keenta ee bariga dhexe. Iiraan iyo bariga dhexe oo guud ahaanba abaari ay asqaysay muddo dheer, iyo geeska Afrika oo Soomaaliya ka mid tahayba, markii saldhigyadaas la burburiyey waxaa ka da'ay roobab aad u waaweyn oo lagu barwaaqoobay oo aan weligood horey loo arkin. Waxaana la aaminsan yahay haddii saldhigyadaasi dib loo aasaaso in abaarihii dib u soo noqonayaan, colaaduna ay sidan uun mar walba ahaan doonto. Carabtu waxay ogaatay in aan marnaba saldhigyada loo samaynin maslaxad iyaga lagu ilaalinayo, kadib markay ogaadeen in aan la ilaalinayninba oo ay noqdeen saldhigyadani kuwo ilaalinaya waddamo kale. Sidoo oo kale waxay arkeen carabtu iyada oo hareerahooda ay soo kor fadhiisteen siyaasado ayan ka lug bixi karin oo sida China iyo Ruushka iyo Hindiya iyo waddamadii carabta oo qaarkood la xodxotay sida Imaaraadka oo Hindiya iyo waddamo heshiis la gelaya. Colaadahaasi waxay noqdeen kuwo waddamadii carabtana iska horkeenaya, cadow badan oo bannaanka ka soo imanayana keenaya deegaankii, awood iyo sirdoon iyo military iyo tiknoolajiyad ay kula dagaalamaan aan hayn. Arrintaasi waxay abuurtay baraarug aad u ballaadhan. Dhowaan bay ahayd markii dalka Sacuudigu uu Maraykanka ku wargeliyey inaan hawadiisa la isticmaali karin oo Iiraan iyo waddan kale toona aan laga weerari karin. Iskaashiyo waaweyn oo adduunka ka jira ayaa jira oo abuurmay, sida Ruushka iyo Hindiya iyo China oo iyaga laftoodu kala taageeraya dagaalkan meesha ka socda, iyadoo dhanka kalena waddamo badan oo muslimiin ay baraarugu ay bilaabeen sida Bakistan, Sacuudiga, waddankan la yidhaahdo Turkiga, iyo Iiraan lafteeda oo iyadu aad moodid in ay sidii hore ka dabacsan tahay waddamada muslimiinta xaggooda ay u soo janjeersatay. Mid ka mid ah aqoon-yahanada khuburada ah ee la waraysto ee waddamada carabta ayaa waxa uu yidhi sidan: